kusoo dhawaada casharkeen taxanaha ahaa waxaynu ku jirnay qaybtii determinant ayaynu ku jirnay chapterkii matriska qaybtii determinant ayaynu marinay waxaynu ka bixinaynaa example ayaynu ka bixinaynaa maantay example waxa lagu yiraahdaa casharkii kan ka horeeyay waxaynu ku sharaxnay formuladii qaabka ayaynu ku sharaxnay laakiin casharka hadda waxaynu ku sharaxnay example baan wax ka bixinaynaa minorska iyo cofactorska sida loo raadiyo determinant intaas loo raadiyo marka hadda waxa lagu yiri waxa qodhaa minors and cofactors of each elements kasta raadiyo lagu yiri cofactors si minor ku leeyahay marka badanaa minorka iyo cofactorka wax ka dhaxeeya relation waa anaga u jeedna formula halkan cofactor waxa lagu helaa -1 row plus column waxa ka wada r tan wax ka wada row tan wax ka wada column lagu dhuftay minor marka matrix kan hadda waxaan leeyahay matrix A ayaan si matrix A inta ayaa lagu siiyay elements wax weeye elements ka wax weeye 1 3 2 4 yani numbradan elements weeye elements ayaa lagu wadaa marka wax lagu yiri waxa kale oo qiimeysaa wax lagu yiri waxa kale oo qiimeysaa determinant raadiyo marka way isku xiran yihiin marka hore waxaan soo saaraynaa minorska iyo cofactorska ayaynu soo saarnaa solution baynu niri example kan matrix A waxaan solution waxaan xasuusinaa formuladinka ayaa soo qaadanay cofactor waxa lagu helaa intan ayaa lagu helaa cofactor -1 row plus column times minor determinant waxa lagu helaa intan ayaa lagu helaa determinant waxa lagu helaa A cofactors of A1 marka eedan waxa ka wada elements ayaan ka wada eedan xarafka ayaa loo soo qaatay yani -1 -2 ayaa u qaadanay yani number ayaan u qaadanay marka eeda xagee oo meesha oo waxa weeye 1 kan waxa ka wada row iyo 1 kan kale waxa weeye waa column marka row 1 iyo column 1 marka oo lagu dhuftay cofactors of A elementski row 1 column 1 marka formula waa sidaan halka waxaynu ka fahminaa marka hore waa inaad soo saartay hada determinant raadinaysid marka hore waa inaad soo saartaa cofactorska cofactorna waxa lagu helaa -1 row 1 plus column times minor marka si fudud ayaynu u shaqeynaa hadda waxaan rabaa inaan eedan kala qeexo eedan 1 row 1 column 1 inaan qeexaan rabaa marka cofactorkan يعني إذا وين إذا كلا واسكم لكن توا هو cofactors of A1 row 1 مركاد واحد ربع cofactor كأنا كور cofactors أنا كور ما ربع هذا واحد ربع cofactor كانوا كلا كوسقات واحد هذين cofactors of A1 row 1 أي هذين هارونيا cofactors أقرانيا cofactor واحد ربع صفر cofactors of A1 كنا أي قرنية A1 يعني column 1 iyo row 1 equal marka waxa rabaa ina inta raadiyo marka A1 tan A1 waxaan ka soo saaranayaa matrix 1 yani halkan A1 maxaa laga wadaa Adan 1 row kan wax ka wada row 1 kana wax ka wada column 1 ayaa ka wadnaa marka si fudud ayaan u soo heli karnaa haddaan u tago hadda matrix A waxa la ka kooban tahay order form keeda seeway order form ka waxyaalaha ka kooban tahay wax kamid ah row hadda line kan maxaa weeye line kan 1 3 2 waxa weeye waa row 1 waxa kale ka kooban tahay row 2 maxaa weeye waa 4 5 6 line kan weeye row 3 yani jiftaha waxa weeye waa 3 5 2 صح marka waxay kale ka kooban tahay column 1 ayay ka kooban tahay column 1 waxaan ayaa column 1 waa line kan joogtaha waa 4 1 4 3 column 2 kooda column 2 column 3 isaas weeye marka waxaan sameynayaa si fudud baa waxaan sameynayaa muxuu ahaye waxaan sameynayaa si fudud waxaan raadinayaa marka A1 kan ilaa maxaynu niri cofactor waxaynu niri cofactors of A1 row 1 column 1 ay oo shaayada marka cofactor baan sameynayaa A1 ka ayaa qeexaya qiimaha lamid
numberka ay la mid tahay baan qeexaya marka waxaan oranayaa a1 baan qoranayaa a ayaan qoranayaa a row 1 column 1 column 1 equal maxay la mid tahay elementska la mid tahay waxaan rabaa elementska oo lah eedan wax la mid tahay elementska oo lah row 1 column 1 ay la mid tahay marka row 1 iyo column 1 yaa oo lah row 1 yani wankan hore waxa weeye waa row ayaa laga wadaa row 1 column marka 1 ayaa oo lah 1 ay la mid tahay hadda waxaan rabaa ka soo qaad b daan ka raacnaa b1 2 row 1 row 2 b daas intee la mid tahay haddaan qeexiyo b1 column 1 columnka ayaa dambeeya markasi b1 no b2 way halkan maxaa igu qoran halkan waxaa igu qoran 2 ayaa igu qoran 2 ayaan ka dhiganayaa haddii kale b1 1 haddaan dhaho 1 ayaa isoo baxay positionka waxa oo la 1 ayaa olay marka waxaan samaynayaa si fudud yaa oo lah waa row 1 halkan r way row 1 kana maxaa weeye column way soo marka waxaan samaynayaa si fudud ayaan waxaan samaynayaa yaa oo lah row 1 waa line ka soo ma column 2 row 1 iyo column 2 xagee isku yimaadaan wax isku yimaadaan saddex ay isku yimaadaan marka waxaa lahayaa b1 2 waxay la mid tahay 3 ay la mid tahay marka haddana waxaan samaynayaa cofactors of c1 3 ayaa raadinayaa c1 3 ayaa raadinayaa marka c1 3 xagee ugu timaadaa row 1 waa linekan 1 waxa weeye row waxa weeye 1 weeye waa linekan 3 dan maxaa weeye column 3 marka waa -2 marka waxaan raadinayaa haddana d ayaan sii raadin karaa d marka d-da halkan column 3 ayay u egtahay meesha u dambeyso hoos ayaa u tagaya row 2 halkan maadaama 1 ahayd maxaa ka dhigaya haddana 2 ayaan ka dhigaya waxaan dhahayaa rowga 2 ayaan ka dhigayaa d ayaan qaranayaa maxaan dhahayaa 2 ayaan ka dhigayaa 2 maxaan sameynayaa d21 yaa ii fadhiya waxaan dhahayaa row 2 ilaa waa 2 halkan soo ma waxaan dhahayaa row 2 column 1 ilaa column maxaa weeye maanta 1 weeye marka 4 ayaa insha Allah 4 ayaa marka saa ayaa ku wadaysaa sida ayaa ku wadaysaa shantan oo kale waa raadin ka dhaa positionka oo waxaa dhahaysaa halkan 2 soo maahay halkan 1 soo maahay hadda waxaa dhahaysaa 2 waa ayaysa hadda ka soo qaad e soo qabo e qor e haddaan qoro maxaa siinayaa meesha oo maxaa oranayaa ila row 2 waa marayay soo ma row 2 ayaa marayay row 1 waa soo dhameeyay row 2 waxaa oranayaa row 2 1 waa qoray 2 ayaa oranayaa 2 ayaa maray equal maxaa ila mid noqonaya row 2 waxa weeye waa row 2 iyo column 2 row 2 iyo column 2 xagee isku yimaadaan -5 ay isku yimaadaan saa ayaa u qoraysaa elements kasta waa qori karaa marka waxaan sameynaynaa anigu hadda waxaan raadinay cofactors of 1 yaa oo lah row a 1 row 1 column yaa oo lah eedahay maxay noola mid tahay waxay noola mid tahay 1 ayay noola mid tahay qiimaha booska yaala waxa weeye 1 ayaa oo lah markaan kasoo tago marka cofactor maxaa lagu heli jiray cofactor waxaa lagu heli jiray -1 row plus column marka waxaan oranayaa -1 row plus column maxaan oranayaa row waxa weeye 1 oo lagu daray plus column isla unka kale oo lagu dhuftay minor maxaa lagu helaa minor see loo helaa haddii maanta raadi lagu dhaho minor raadi lagu yiraahdo see u heli karaa si fudud minorka waxaa lagu helaa minorka ayaa iska leh 1 minorkeeda ilaa hadda waxaanu ku jirnaa cofactors of 1 marka minorka 1 ayaa leh marka hadda waxaan fiirinaa ilaa a waxay noola mid ahayd eedan waxay noola mid ahayd saynu halka uga jeednay
1 ay noqonto marka minorka 1ka uu yeelanayo barhadina ila element kasta halkaan waxaan ku qeexay each element kasta wuxuu leeyahay minor ayuu leeyahay minor marka hadda 1ka ayaa cadeynaa minorkiisa see ku cadeyn karaa marka waxa dhahayaa minor waxaan qoranayaa halkaan waxaan ku qoranayaa si fudud ayaan qorayaa minor si fudud haddaan qoro waxaan oranayaa minor of 1 kan ama waxaan oran karaa a11 ama 1 baan oranayaa 1 ayaa soo qaadanayaa 1 equal waxay la mid tahay minorka maxay la mid tahay minorka waxa lagu helaa si fudud hadda 1kan minorka daraadinayo 1kan iyuu ka tirsan yahay column ahaan line-ka ayuu ku tirsan yahay sooma column ahaan line-ka ayuu ku tirsan yahay aan qoray row ahaan ayuu ka tirsan yahay row ahaan ayuu ka tirsan yahay row ahaan wuxuu ka tirsan yahay line-ka ayuu ku tirsan yahay sax line-ka ayuu ku tirsan yahay marka column relation wuxuu leeyahay column ahaan line-ka ayuu leeyahay row ahaan wuxuu leeyahay 3 minus 2 ayuu leeyahay sax marka maxaa soo haray minus 5 6 5 2 inta relation lama laha sax inta relation usla lahayn ba waxa la dhahayaa minor of 1 wax weeye minus 5 6 5 2 way sida ayaa oranaysa minor saas lagu helaa marka halkaan ku qoranayaa minorku muxuu noqonayaa minor of 1 wuxuu noqonayaa minus 5 6 5 لو أي نقطة minor كسم حنقضي أنت هذي لو ده minor of 1 هذه أنت سايكويس ميت كستنا واحد سمينا ساعة interrelational يعني هذا 1 كrelation column هان لين كايول اللي هي row هان يول اللي هي كلا يول اللي أنت ساقان ميت كست element كسيرة سايكو سمينا يعني واحد كريبس أنتو column هان row هان relation اللي أي كريبس هذا row هان وكترسي هاي 1 كان انت column ahaan wuxuu tusay inta aan ahayn baqaansa sida simbolka ayaa sameeyay marka waxa sameeynaa minor of 1 maxaa sameeynaa minus 5 maxaa sameeynaa minus 5 6 5 ayaan qoranayaa labo intaas ayaan qoranayaa inta ayaan qoranayaa waxa sameeynaa hoos intaas ayaan ku qoranayaa waxaan qoranayaa minus 5 حسبانية minus 5 minus كأي أقول فريا minus 5 له 5 لو أي أقولني أنت يا أسمانية equal وأقولني أمر كم حاسب بحياة minus باورضا مش كدر مثلا 1 plus 1 محاسب بحياة وحاسب بحياة minus 1 باور 2 minor كان محاق سوينيا minor كحسوينيا سيدان first أي سكول عيان سيدان first أي سكول عيان لوضع لغوهر مرة مركزته لوضع أي سكول عيان حين نقوليا براكت أي فروليا حوالي minus 5 أو لغلفتي لو أو لغتشر أي كتشرتا ويمانسا مركزته ويمانسا 5 أو لغلفتي لح equal بحين من نقول سارك marka intaan haduu minus 1 haduu yimaado minus 1 haduu power kan uu noqdo even haduu noqdo even number maxaa la yiraahdaa waa numberka laba u qeysmato hadii 8 maxaa u qeysma laba u qeysmato waa 4 yani wax boonti ma yeelanayso hada 3 ma even ba waa odd 3 laakiin laba hada u qeyb maxay yeelanaysaa 1.5 tachab ay yeelanaysaa yani 0.5 ay yeelanaysaa marka numberku laba u qeysmo oo san tachab galeen waxa weeye waa if number baa yiraahdaa marka waa tirada isleeg yani si isleeg loo qeybin karo ifanka waxa weeye tirada si isleeg loo qeybin karo marka waxaan sameynayaa haduu noqdo powerka haduu noqdo minus 1 ka haduu power noqdo even waxa soo baxaya positive number ayaa soo baxaya hada positive ayaa soo baxaya ila 1 kisma bedeli moogtaa dul isku dhufto hada ka soo qaad hadaan ku dhufto minus 2 lagu dhufto minus 2 waxa soo baxaya plus 4 ayaa soo baxaya
يعني minus minus haddii lagu dhufto plus ayaa soo baxa plus haddii minus lagu dhuftana wax soo baxa minus plus plus haddii lagu dhuftana plus ayaa soo baxa waa sidaas wey laakiin muhiimadda waxa weeye powerka wuxuu kuu sheegayaa inta jeer ay isku dhacayaan hadda -1 labadan powerkeeda waxa weeye waa positive ayaa soo baxaya marka waxaan iska qoranayaa positive 1 miyaa iska muujinaya haddaan iska muujiyo oo wax kale wax isbeddel ma sameynayo laakiin waxaan rabaa inuu qof walba fahmo si easy dad waxaa jira ma ogtahay aad fahamkooda u culus yahay dadkaasaa fududeynaya marka hadda waxaa iska soo qortay +1 ayaa iska soo baxay haddaa rabto calculator isticmaali ka dhahay -1 oo lagu dhuftay -1 waa oran ka dhahay laba jeer dhufjimeyn isku dhufanay marka waxaan oranayaa intaan isku dhufo inta haddaa isku dhufto bracket ka furo maxaa soo baxay -10 -30 ayaa soo baxay inta ayaa soo baxaysa taasi qurux badan qoro -30 ayaa soo baxaysa marka +1 kan wax isbeddel haddii +1 inta lagu dhufto wax isbeddel ma muujinaya aan iska soo qaato dartid hadaan iska soo qaato +1 si easy ayaa qoraya bracket waa furaya labada isku darsanaya maxaa weeye -40 bracket equal marka +1 haddii -40 lagu dhufto maxaa soo baxaya isla -40 ayaa soo baxaya marka intaan maxay la mid tahay cofactor of 1 way 1 ay la mid tahay cofactor of 1 maxaa helay intan ayaa helay laakiin cofactor minor of 1 maxay la mid ahayd waxay la mid ahayd -40 ay la mid ahayd -40 inta ay la mid ahayd minorka raadi haddii lagu dhaho inta ayaa cross ku dhufanaysaa minor laakiin maxaa soo saaray hadda cofactor of 1 ayaa soo saaray maxaa weeye -40 ay la mid tahay marka waxaan sameynayaa inta ay la mid tahay cofactor of 1 maxaan ku xijinayaa waxaan raadinayaa ila elementska raadinaya b12 ayaa ku xijinaya b12 oo ah 3 ayadana waxaan raadinayaa cofactorkeeda iyo minorkeeda hadda marka hore fiiriyo minorkeeda haddaan fiiriyo b12 yaa ah 1 2 row waxaa 3 soo ma 3 weeye marka waxaan sameynayaa minorka ayaa ku hormaraya minor of 3 ayaa raadinaya 3 baa iyaga usha soo ma minorka haddaan raadiyo minorka isaa u saaraya minorka waxaan sameynayaa inta relation ka dhexeyso relation row ahaan lineka ay relation la leedahay sax column ahaan ay leedahay row ahaan inta ay leedahay column ahaan inta ay leedahay marka intee number noqonaysa minorkeeda waxa weeye inta relation la lahayn 3 waxa weeye 4 iyo 6 iyo 3 iyo 2 sax kan 6 ayaan ka wadaa marka waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa inta ayaa soo qaadanaya waxaan oranayaa 4 6 3 2 inta ayaa sameynaya marka minorkeeda wuxuu la mid noqonayaa inta minor of 3 inta qiimaha la mid noqonaysa inta maxaa isku dhufanayaa cross ahaan kan ayaa ku hormaraya labadan ayaa ku hormaraya waxaan oranayaa 4 2 lagu dhuftay laga jaray 6 oo 3 lagu dhuftay marka maxay la mid noqonaysaa waa 8 oo laga jaray 18 oo la mid ah -10 marka minor of 3 maxay la mid tahay -10 ay la mid tahay -10 halka 18 ayaa ka wada halkaana 10 ayaa ka wada -10 marka minor of 3 waxaa ii soo baxday inta ay sidaa fudud ayaa u raadinaysaa sii soconaya wax sameynaya kusii xijinaya minor of 3 qoranaya marka waxaan oranayaa minorka waa haystaa laakiin waxaan fiirinayaa cofactor of 3 ayaa raadinaya a12 b ayaa soo qaadan halkan b ayaa noo tale b12 ayaa oranayaa waxaan oranayaa cofactor of b12
b12 ayaan sameynaya b12 unkii ahaa unto equal waxay la mid tahay cofactorka. marka cofactorka formula cofactorka maxay noola mid ahayd waxay noola mid ahayd -1 row plus column ay noola mid ahayd row plus column. marka waxaan sameynayaa -1 ayaa soo qaadanaya -1 ayaan soo qaadanaya rowgi maxaa ku darayaa rowgi iyo plus column-ka 2 way tan waxaan oranayaa 1 plus waxaan ku darayaa 2 ayaan ku darayaa. marka waxaan sameynayaa bracket ayaan furayaa minorka ayaan qoranaya minorka maxaa isoo baxday b12 saddex ayay noola mid soo ma maxaa isoo baxday 4 iyo 6 iyo 3 iyo 2 ayaa isoo baxday 4 iyo 6 iyo 3 iyo 2 ayaa isoo baxday. marka waxaan sameynayaa inta ayaan qaadanayaa waxaan qoranayaa 4 6 3 2 marka maxay la mid tahay kan maxaa oranayaa -1 baawarada isku darmaya soo ma hal laba haddaan ku daro halkan laba ayaan ka wadaa marka hal laba hadda ilaa 1 2 way b soo ma marka ilaa halka rowga iyo column-ka ayaa isku dariyay baawarka. marka waxaan oranayaa 3 ayay la mid tahay marka maxaan furanayaa labada maxaa isku dhufanayaa inta ayaa lagu hormaraa marka hore 4 2 ayaan ku dhufanayaa 4 2 ayaan ku dhufanayaa oo laga jaray 6 maxaan ku dhufanayaa 3 ayaan ku dhufanayaa equal. marka -1kan maanta maxaa weeye waa odd weeye marka maxaa soo baxaya ilaa 1 kusma bedelay haddii la isku dhufto -1 ayaa soo baxay isla -1 ayaa soo baxaya. marka maxaan qoranayaa -1 ayaan qoranayaa inta maxaa isoo baxaya inta waxa isoo baxaya waa 8 minus 18 صح. marka waxaan oranayaa -1 ayaan qoranayaa ilaa inta iga buuxsatay moogta maxaa isoo baxaya inta -18 ayaa isoo baxaya -18 number mar walba wax qaadanaya numberka weyn ayaa qaadanaya calaamad wato. marka waxaan oranayaa 8 waxaa isoo baxaya -18 -10 baa isoo baxaya ka wada -10. marka maxay noqonaysaa minus hadduu minus ku dhaco maxaa soo bixi jiray plus ayaa soo bixi jiray minus haddaa minus ku dhufatid maxay soo baxa plus ayaa soo baxaya. waxaan qoranayaa 10 ayaan qoranayaa 10 positive cofactor of b12 maxaa soo baxay 10 ayaa soo baxay positive intaas haysta. marka waxaan ku xijinayaa cofactor of maxaa ku xijinayaa c13 maxay la mid tahay 1 row 1 tray ka wada -2 ay la mid tahay صح. marka ayada maxaa ku sameynayaa haddaan inta u xariiqdo haddaan sameynayaa c13 haddaan qaato c13 waxay la mid tahay -2 soo maaha marka maxaa dhahayaa cofactorkeeda -2 ay la mid ahayd. marka maxaa sameynayaa cofactorkeeda minorkeeda ayada minorkeeda maxaa ku helayaa haddaan qorto si kale sida kale haddaan qoro oo la fahmi karo minor of c13 oo ah -2 equal maxay la mid tahay -2. marka ayada maxay la mid tahay minorkeeda sida ayaan sameynayaa column ahaan waxay ka mid tahay line-ka ay ka mid tahay row ahaana waxay ka mid tahay line-kan. marka maxaa isoo haraya 4 - 5 3 5 ayaa isoo haraya inta ayaa isoo haraya intaas ayaan sameynayaa. maxaa sameynayaa waxay ila mid tahay oranayaa 4 - 5 3 5 intaas ayay la mid tahay oranayaa marka intaas ayay la mid tahay. marka inta ayaan qaadanayaa minor of c12 marka minorkeeda intaas ay la mid tahay haddaa rabti waxaa iskugu dhifan ka dhaca cross ahaan maxaa sameynaysaa kan ayaa ku dhufanaysaa waa 4 lagu dhuftay 5 oo laga jaray -5 oo lagu dhuftay 3
maxaa ii soo baxaya waa 20 labada isku dhacaya plus 15 oo la mid ah 35 inta ay ku soo baxaysa marka sidaas weeye waxaan sameynayaa ku xijinayaa marka waxaan oranayaa cofactor baan oranayaa cofactor baan oranayaa waxaan qoranayaa cofactors of b1 kii waxay ahayd c13 ay ahayd baan oranayaa cofactor of c13 marka cofactor of c13 marka waxaan oranayaa minus 1 plus waxaan oranayaa 1 ka ku darsamaya maxaa ku darsamaya 3 ayaa ku darsamaysa marka minorka waa soo qaadanaya c13 oo la mid ahayd c13 waxay la mid ahayd minus 2 sax minus 2 ayay la mid ahayd marka waxaan soo qaadanayaa intay la mid ahayd c13 waa 4 minus 5 3 5 ayay la mid ahayd sax marka waxaan sameynayaa 4 minus 5 si tartiib ayaan u sharaxayaa maaragtay qofka si fahmi karo 5 marka waxay la mid tahay oranayaa inta ayaan isku darayaa waxaan oranayaa minus 5 power 4 kuwa maxaa ku sameynayaa iyadana cross ayaan isku dhufanayaa kan ayaan ku hormariyaa 4 waxaan ku dhufanayaa 5 minus ayaan oranayaa bracket yar ayaan sameynayaa dhexda ka sameynayaa oo ah minus 5 oo lagu dhuftay 3 oranayaa kii weyn ayaan ku xirayaa equal baan oranayaa marka minus 1 kan powerka hadduu even noqdo muxuu noqonayaa positive ayuu noqonayaa sax marka waa iska muujinayaa siduu qof walba fahmo positive 1 ayaa sameeya marka labada maxaa dhacaysa halkan waxaa imaanaysa 20 minuska halkan waxaa soo baxaysa minus 15 ayaa soo baxaysa minus 15 muxuu ku dhacayaa minuska ayaa ku dhacaya laba minus haddii isku dhacaan plus 15 ayaa noqonaysaa plus 15 marka isku darsamaya hadhow 20 ayuu ku darsamaya 15 ayuu ku darsamaya marka waxay noqonaysaa equal 35 ayay noqonaysaa marka halkaa maxay noqonaysaa cofactor of c13 waxay la mid ahayd minus 2 ayay la mid ahayd sax minus 2 ayay la mid ahayd marka intaas ayay soo baxaysaa cofactor intaas ayay soo baxday mid kasta saas ayaa u sameynaysa hadda afar oo raadin karaa afarta minorkeeda oo afar maxay la mid ahayd d21 maxaa ku sameynaysaa minorkeeda d21 ka waxaa ku sameynaysaa minorkeeda maxay relation la leedahay d12 column ahaan inta ay la leedahay sax inta ay la leedahay row ahaan ayay la leedahay inta ay la leedahay marka minorkeeda maxay noqonaysaa minor haddaan halkan ku qoro halkan minor halkan ku qorayaa minor waxaan oranayaa minor of d1 oo la mid ah 4 equal waxay la mid tahay intaana u calaamadeynayaa iyada intaan ayaa calaamad oo dhigaya marka waxay la mid tahay waa idin soo intaan ku qorayaa marka 4 waxay la mid tahay qiimaha ay la mid tahay waxa weeye waa 3 inta ay la mid tahay minor marka haddaan qorto minor of 4 waxay la mid tahay kan ayaan ku qorayaa waa inta relation la leedahay soo ma afar waxay relation ahaan la leedahay intaan row ahaana waxay la leedahay intaan column ahaan intaan marka maxaa weeye waa 3 minus 2 iyo 5 iyo 2 marka waxaan sameynayaa minorku muxuu noqonayaa waa 3
minus 2 shan iyo labo sax shan iyo labo marka minor of 4 waa intaas hadhow cross ahaan baa isku dhuftaa resultkeeda dhan baa soo saaraysa jawaabta dhan baa soo saaraysa marka minor of 4 waa sidaas mid walbana waxa u raadinaysaa minorkooda sidaas hadhowna cofactorka ayaa raadinaysaa waxaa samaynaysaa minorkeedana waa soo qaadanaysaa saana kale soo qaadanaysaa cofactorkeedana waxaa isku daraysaa row ahaan iyo column ahaan meesha ka taala ayaa isku daraysaa mid walba sidaas symboliga ayaa u raadinaysaa element kastana waa soo saari kartaa element kaste sidaa ayaa u saaraysaa waan kasii gudbiyaa isku mashquulimaya elementiyadaas mid walba haddaa sii raadiyo waqti ayaa sii dheeraanaya muhiimaddu waxay ahayd in la fahmo concept laga helo marka waxaan sameynayaa determinant ayaa hadda raadinayaa matrixka determinantka markasta matrix si u badan laynka kore ayaa lagu xisaabiyaa lagu qiyaasaa sida hadda sameynay row 1 iyo column 1 b12 iyo b13 saas ayaa loo saaraa formula ayaa lagu apply gareeyaa cofactorkoodana hadhow waa lasoo qaataa marka hadda waxaa rabaa dhahayaa b11 haddaa soo qaato determinantiga yani waa soo koobayaa waxaa oranayaa determinant waxa loo soo gaabiyaa determinant waxa loo soo gaabiyaa waxay la mid tahay formula ayaan soo qaanayaa a11 yaa yaala booska a11 waxaa yaala 1 ayaa ii taala yani eeda hadda capital weeye yani kan cofactorkiisii weeye yani waxay uga duwan tahay cofactorkiisi laakiin maanta positionka a11 waxaa ii yaala 1 ayaa ii yaala 1 ayaan soo qaadanayaa 1 ayaa soo qaadanayaa bracket ayaan furinayaa marka waxaan sameynayaa cofactorka maxay la mid tahay cofactorka waxay la mid tahay cofactor of a11 cofactor of a11 maxaa soo saaray cofactors of a11 waxaa soo saaray minus 40 cofactors of a1 ila 1 bay la mid tahay soo a11 minus 40 ayaa soo saaray marka halkaa waxaan ku qoranayaa minus 40 ayaan ku qoranayaa minus 40 ayaan soo saaray minus 40 waxaan soo saaray minus 40 plus ayaa oranayaa plus bixto marka waxaan sameynayaa maxaa ku xiga b12 maxay la mid tahay b12 saddex ayay la mid tahay b12 saddex ayay la mid tahay saddex ayaan soo qaadanayaa 3 ayaan soo qaadanayaa bracket waan ku xiriyaa bracket ayaan furanayaa cofactors of b12 maxay la mid tahay cofactors of b12 ama cofactors of saddex maxay la mid tahay 10 ayay la mid tahay 10 ayaan soo saaray 10 ayaan soo saaray waan qoranayaa 10 ayaan soo saaray 10 ayaan soo saaray plus waan oranayaa marka maxaan soo qaadanayaa haddana c13 cofactor of c13 ama hadda waxaan soo qaadanayaa c13 waxay la mid ahayd qiimahay la mid ahayd waxay ahayd c13 minus 2 ayay la mid ahayd minus 2 ayaan qoranayaa bracket yar aan furanayaa bracket yar minus 2 ayaan qoranayaa minus 2 aan ku xirayaa bracketkii kii kale aan furanayaa ay weynaa kii kale weynaa maxaa oranayaa marka waxaan sameynayaa cofactors of c13 maxaan soo saaray cofactor of c13 35 ayaa soo minus 2 cofactors of minus 2 cofactors of minus 2 aan cofactorkeeda wax weeye intaas oo 35 aan qoranayaa 35 marka waxaan sameynayaa intaan isku dhufanayaa minus 40 1ka ayaa ku dhufanayaa bracketka ayaa luminayaa waxay soo baxayaa minus 40 oo lagu daray saddexa maxaa ku dhufanayaa 10 waxaan sameynayaa marka taata ayaa soo baxaysa sax minus 2 hadduu pluska ku dhaco minus hadduu plus ku dhaco maxaa soo baxaya ama waxaan sameynayaa minus 2 ga maxaa ku dhufanayaa 35
maxaa isoo baxaya minus 70 minus 70 minus muxuu ku dhacayaa plus isla minuski wey marka waxay noqonaysaa minus 70 minus 70 minus 70 ayaa isoo baxaysaa marka waxaa samaynayaa intaan bas xalinaya kan muxuu ka jarmaya labadan daa soo kala jarno ila minus 40 calaamada weyn ayaa nambarkeeda marba qaadana maxaa oranaya minus 10 minus 70 waxay la noqonaysaa total minus 8 ay noqonaysaa minus 8 marka det maxaa noo soo baxay determinantii det ayaa soo gaabinay det ayaa loo soo gaabiyaa badana waxaa soo baxay minus 8 ayaa soo baxday resultii minus 8 ayaa soo baxay marka mid walba saas ay raadinaysaa cofactorka iyo minorka si loo helo each element cofactorka iyo minorka waa raadin kadhaa qaabkii aan ku tusay ayaa raadin kadhaa waxa samayn kadhaa oo kale determinantigana the formula guud ayaa lagu apply gareeyaa markasta ayaa lagu apply gareeyaa formula ayaa lagu apply gareeyaa maanta casharkeen intaan u ekaado waxaan isku daynaa casharo kale inaan ku soo darno oo badan hadda waxaan gelinaa properties of determinant ayaa gelinaa ayadana waxa ku barbar wadi doonaa calculus 1 ayaan ka bilaabi doonaa ilaa aan calculus 3 ka dhameeyno insha Allah waxaan rajeynayaa inuu saacideyn sabab u